بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وين ولا صلاة دمانتي bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba joogtaan maanta waxaan wax muhiim ah oo ka muhiima nolosha kulay dadkeena qurbaha jooga oo aad ugu muhiima marka qodobkana soo qaadanayo kulay waa nolosha dhanba muhiim u yahay waa barbaarinta carruurta horta marka hore aanu ma yihi doctor ku takhasusay tarbiyadda carruurta waxaan laakiin aabba carruur koriya marka taayna ogaana weeyaan tarbiyadda carruurta waa cilmi maha dhaxal taasina waa muhiim weeyaan macnahaan qofku markuu doonayo inuu tarbiyadda carruurta koriyo kulley dadkeena bulshadu waa isla talina qofaa kulana ilmahaasaa ku samee qofaa kulana ilmahaasaa yeel isaa u kori isaa u samee saasaa loo sameeya dadkeena soomaaliduna badana waxay ku dadaalaan marka meel laga eego dharka iyo labiska iyo cuntada laakiin ilmuhu wuu ka weynaya waxaas oo dhan labiska iyo cuntada iyo dharka iyo waxyaalaha iyo hurdada marka si aan u helo generation cusub jiil cusub carruur cusub oo wanaagsan oo la jaan qaadi karta qurbaha meeshan la joogo kale horta marka casharka bilaabiyay su-aal baa is weydiiyey waxa dhaadhe muxuu qofku markuu shortcutka u qaadanayo u gala tuuri oo waxbarasho u qaata shortcutka markuu qaadanayo leysonka baabuurwadista qofku wuxuu galaa tuuri iyo practic ba laga qaadaa oo shorning ba laga qaadaa short opening oo de qofku uu ku najaxaa ama uu ku dhaca maxaa anagu lafteenu marka doonayno xiriir guur markuu imanayo qofku inuu ogaado xiriirkaa guurku waa shirkadoo kale waa shirkadaha ugu weyn noloshoo dhan marka laga sharikad oo laba qof gabadh iyo nin isku imanaya waxbay abuurayaan carruur marka way qofku markuu doonayo inuu guursado taasina dhalinyarada khuseysaa dadka guurka ku soo socda hadda guurka intaan qofku gelin muxuu garan waayey guurka maxay tahay guurku qofku suleebu xaasiisa loo dhaqmi karaa waayo bugaag baa jirta ingiliisha bugaag af carabiya bugaag af soomaaliya oo language walba adduunka markaa qofku muxuu raadin waayey marka haddaan nahay muslim sila ula dhaqanno qofka dumarka iyo ninka raggu sila isla dhaqmayaan xuduuday leeyihiin qof walba iyo waajibaadka iyo xuquuqda lagu leeyahay iyo carruurta laftooda marka qofku carruurta korinayo carruurta waa cilmi wax la barto maaha dhaxal qof walba waan asla anoo kale ka soo qaad aabe hooyo ay dhalay qof walba aabe hooyo dhalay way soo koriyeen dhaxal bay ku soo koriyeen hadda doonaan oo de culture dhaqan la soo oo sila tarbiyadu tahay qof ugu najaxdaa qof ugu najaxdo noloshana waa sila qadarkuna wax kala weyn qofaa ku daalaya wadaad baa dhali kara ilmo aanan fiicnin oo wadaad macnahaan sheekh caalami diinta ku fiican taas waa wax mas'alad kala weeyaan marka taas waa inay ogaan nuux baa inankiisa wax lagu ruri ilaahay wuxuu ku ruri nuux cabdun ghayr saalix kuma marka nolosha marka la bilaabayo qofku guurka waa inuu ogaado guurku waa maxay oo de soo yar akhriyo sida qofku ugu dadaalayo shortcutka iyo waxyaalo kale ka dheeraada nolosha oo de maal gelinayo waqti gelinayo waxyaalo badan gelinayo suu fahmo tarbiyadda carruurta ma aha dhaxal waa cilmi macnahaan laba koob baa soo qaatay labada koob haddaa ilmaha dareen fiican oo caatifada ixtiraam tarbiyad saalixa akhlaaq fiican dabeecad ma shakhsiyad fiican ku abuurtid koobkaa wax kusoo shubna ku jira unbaa adiga kuu soo bixi doona macnaha ilmuhu waa waxaad adu kusoo korisid sida usoo korisid unbaa helaysaa waayo dad baa jira aanan korin carruurtooda si kaloo qaab aan habaysnayn u korin ixtiraam ku jirin akhlaaq ku jirin waxyaalahaas oo kale nooca labaadna waxayaan negativeka oo kale koobkan kale waa nacayb qofku kusoo koriyay ilmaha iminka annagu dee waan ilmaha qabiil baa kusoo korinaaba maamul xitaa xaaladuhu xumaato akhlaaq xumo xishmo la-aan ama taran aanan fiicnayn tarbiyad aanan saliimahayn xishmad la-aan shakhsiyad daciifa sida loo ilmaha lagu soo koriyo macnahaan dameer baa tahay qof xun baa tahay nacas baa tahay doqon baa tahay fulay baa tahay waxyaalo badan baa jira eryaashu ku dhaco ilmaha hadhow
koobkaas uu ku shubmanaya ilmi markaa waxa uu dirasay mujtamaca asagoo mujtamaciya ama bi'adii ilmo aanan buuxin macnaha oo ducfi ku jiro meelo badan oo kala duwan waalidku maaha inuu ku fakiro lacagta taasina waa muhiim dadka qurbaha jooga hooyadu lacag buu cararaysa aabuu lacag buu cararaya ilmihii dhexdii ku jira wuu lumaya qofku lacagtu waa wax muhiim marka la korinayo risq la soo qaato laakiin risqi adigoo raadsanaya haddaad ilmahaagii weydid taasina waa ka sii xun taasaa ka sii xun marka carruurta waa inuu qofku ku dadaalo si fiican ugu dadaalo waxyaalo badan u qabto carruurta haddii activity tahay hadduu la hadlo hadduu la fariisto hadduu la sheekaysto hadduu la ciyaaro waalidku hooyaduna saasoo kale la sheekaysato ma aha inuu waalidku mashquulo fadhi ku dirir hooyada hadday ku mashquusho telefoon iyo xagbad iyo waxyaalaha mashruuc buu noqonaya marka ilmuhu maaha mashruuc business ah taana ka saarna wey meesha ilmuhu waa waxa noloshaada kadib marka qofku aabuhu geeriyoodo ama hooyadu geeriyoodo waa camal kuu socda weeyaan marka camalkaa ku socda waxa doonaysa inuu ahaado camal fiican mise camal xum talaada waxa weeyaan ilmaha caatifadada ku shubtid markuu weynaado daw ku caatifadaas buu kugu soo celinaya adiga laftaadu ku daryeelaya adiga laftaadu ku ilaalinaya laakiin haddaad ku shubtid caatifad la'aan iyo ixtiraam la'aan qadar la'aan ilmahaagu laftiisa koobkaadu waxaad ku shubtay unbaadna heli doontaa cabi doonta marka weynaatid oo kuma ixtiraamayo kuma qadirinayo dee marka weynaatidna ilowba inuu kusoo aqbano mid baa jirta ilmuhu waxa weeyaan sida ubaxoo kale macnahaan waxa weeyaan ubaxu wuxuu u baahan yahay biyo oksijiin iyo qoraxda anu tusaale ahaan qoraxda waxaa kusoo qaatay aabbaha oksijiinka iyo carrada camuudda jawiga caafimaadka leh ee bii'adda guriga weeyaan biyuhuna waa hooyada tusaale ahaan ubaxa anagu aragno oo biyuhu hooyada ah oo caafimaadka oo jawiga caafimaadka leh oo bii'adda fiican oo oksijiin u noqonaysa carruurta iyo qoraxda oo aabba saddexdaas ma kala maarmaan hooyada doonaysa inay aabbaha ka saarto meesha ilmuhu labadaas unbuu helaya ilaahay u gargaaro markaa aabbaha doonaya hooyadan meesha ka saarana ilaahay u gargaaro kolley wuxuu heli doona taa iyo taasu markaa ilmo buuxa maaha nabiga calayhi salaatu salaamna wuxuu yidhi agoonta waa inaad la tacaalno agoonku waxay qofka aabihii geeriyoodo ayado qur-aan u sheegaysaana way jirtaa oo agoonta ka hadlaysa markaa diintaada haddaba ku tiriba agoon ilmahaaga aabihii nool agoon lagama dhigo hooyada noolna agoon lagama dhigo marka taas waa muhiim marka dhigan jirnay cilmi ijtimaaca cilmiga bulshada maxaa soo saara tuuga maxaa soo saara dadka dila maxaa soo saara waxa weeyaan usradda weyn familidu hadday meel ka jilicsan tahay ama dhibi ka jirto ama jawiga laftiisu dagaal iyo rabshad yahay iyo fuquuq wuxuu noqonaya ilmahaas ilmo aanan fiicnayn oo jawiga ku dhalanayo ama ku barbaarayo baanan fiicnayn marka waalidka aabbaha iyo hooyadu waa saa weeyaan ilmuhu wuxuu u baahan yahay aabbo fiican oo naajaxa noloshiisa ku najaxa iyo hooyo saalaxo fiican oo korisa markaa maalka qofku hadduu ku fakiro 100% wuxuu heli doonaa aakhiro waxa uu ku fakirayay 100% hooyadana saasoo kale hadday ku fakirto rabshad iyo dhib waxay heli doontaa camalkayga oo rabshado dhiba iyo ilmo aanan xitaa iyada lafteeda daryeeli doonin mujtamacana kolley qofkii قصيدة بحصانة الأم كالمدرسة إذا اعتدت شعبا طيب العراقي هو يدوى اسكول حتى سو كورسيد هو يفي عن أما مش معطوه له هو يفي عن وحيدا لطونتا عروف يعني هو يدوى وبقول كي بس ديتن تطواتا كورسك عروتا النبي عليه الصلاة والسلام وحر خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي النبي عليه الصلاة والسلام قفك وخير بدن وخير أهل كي سوق قبه وأنا خيركم لأهلي أنا خير بدن أهل كي نكا جورو مركا جوركو تماد وحي إن هاتو عيد مركو قفكو نك والد كا مركو جورجا إيمانا يوكله إن عيد هاتويا أو ده مركو سوقري جورجا أبوه يوالدكو إنه فرحويا عروتو عيد هاتو
aabbaha xum laakiin markuu waalidku baxo biciid carruurta u tahay waayo aabbaha xum waa aabbaha dee buuqiyo lawaagiyo carruurta amarun bixinayo qayrinayo un markaa guriga arrimaha ugu waaweyn waxa weeyaan qofka waalidku markuu guriga imanayo waa inay hooyadu farxdo carruurta farxaan macnahaana iyada farxad u ka samaysatay weeyaan mid isyeeyeela maaha iyo marka aan noqonin waalid xum oo markuu baxayo carruurtiisu baarti sameeyaan xaflad alla aabii baa naga baxayba qaar bay carruurta ku raacaan aabbo dee soo yar werwerig maanta hor soo yara sheekayso marka masaladu waa fahmi karnaa waa masalad adag weeyaan waxa weeyaan waxyaalo badan oo ka mid ah aan waxaan dhageystay muxaadarad sheekh doctor ratib nablusi ilaan qofku waxayaan inuu wax isbaro weeyaan oo dee wax akhristo muxaadaradu dhageysto shuuqdeena ilaahay khayr siiyo way ka wala hadleen waxyaalo badan oo saas oo kala marka inta lagu dadaalo weeyaan aad loogu dadaalo waxa jira maqulataada لاعب ولدك سبعا أدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه أي يكون صديقا له معناها وحويان عروتها تضبك لا عيار والله لا شيء صوت تضبا إدبا صوت تضبا إلى اللي أسوق تضبا مركز تضبا نافو أفريقيا طبعا مركز معناها مركز خلاص كعنتها كبحثي صاحب للنقل معناها مكرون كرتيد أفريقيا تمشي لها دقارن مكرون كرتيد مركز تضبا صدحها تضبا unbu qofku ilmaha kurin kara ama wada la hadli kara waxyaalaha kale muhiimka waxa weeyaan waxa uu fiican aabaha in la ixtiraamo aabaha la ixtiraamo maahay aabaha la jecel yahay tvda iyo waxaasna qofku inuu waalidku inay badana tvga inay carruurta kusii deynin oo carruurta badana la sheekaysato oo la hadasho marka anuu kulley searchka marka sameeyo iyo wax ilaahay xaggii ilaahay macnaha khayrka waa la kala gudbisada muxaadaradaha khayrka iyo dadka khayrka ayada laftu noo soo gudbiyaan un baanu wax yar ka yara fahmay intaasaan soo gudbiyey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu